السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصاحبكينا عمر علي عمر بليل كما قاعدير maanta ujeediin waxaan idin soo bandhigayaa asxaab yaryar jiil yaryar oo mustaqbal ifaayo leh oo maanta oo u taagan inay noqdaan dhalinyarada ugu firfircoon ee bedeli doona tiimka Muqdisho ama qaranka Soomaaliya. marka asxaabtan waxa waaye jiil hadda oo ku faraxsan waliba oo ku faraxsan aad iyo aad ugu faraxsan inay noqdaan jiil horumar sameynayo. asxaabta maasha Allah tabarakallah waxaan idinku codsanayaa inaa hala taageero asxaabtan. waa u jeedin ilmaha Soomaaliya qaasatan caruurta ku nool Muqdisho mar walba waxay aad u jecel yihiin inay ciyaaraan kubadda cagtana mar walba waxay u baahan tahay dhiirigelin ayay u baahan tahay. waa horumar haddii qofka la saacido oo la dhiirigeliyo. waa u jeedaa meesha ay ku ciyaarayaan waa meel hataa lugahooda hataa halis ku jiraan dhalooyinka waxyaabo badan, laakiin intaas uma jeedaan. waxay ku faraxsan yihiin mustaqbalkooda inay dhisaan ku tababar qaataan kubadda cagta. bacdul ciid markii ciida laga soo laabtay kadib isku soo laabadka magaalada Muqdisho meeshan u jeedin waa isgoos ka mid ah meelaha ugu bulshada badan ee magaalada Muqdisho oo dadkii u jeedin ciidi waa ka soo laabteen. marka waxay rabaan in ganacsigoodii dib ay u furtaan maadaama lagu maqnaa ciideysi iyo baashaal lagu maqnaa. waxay hadda ay rabaan inay sameeyaan ganacsigoodii dib ay u furaan oo qutul daruurigii ama waxyaabihii tasiilaadkii ay u baahnayeen noloshooda ay meeshan ay ka maareeyaan. waa u jeedin qudaarta, dadka shacabka, bajaajyada, inta bulshada qaybaha ugu muhiimsan oo dhan waa soo laabteen u socodkii magaalada Muqdisho sidiisii hore. qof walba maadaama nasiino oo ku maqnaa oo baashaal iyo damaashaad lagu maqnaa, hadda noloshii asaasiga ayaa dib loogu soo noqday. ayaa dib loogu soo noqday waayo qof walba waxa lagu dhigay bil iyo balaya laga rabaa. marka waxa waaye in oo lala socdo soo noqodka magaalada Muqdisho. waana maasantiin asxaabta qaaliga ah waa saaxiibkiina Baliil.